hooyo Luul Cismaan Xasan gurigeeda waxa ay ka baxaysaa iyada oo rajaynaysa in cadaaladda ay u hiiliso si ay u hesho wehelka kaliya ee carruurteeda ka haray kaasoo ah Xasan Cali Ibraahim oo muddo 4 sano u xirnaa xukun ku dhacay markii ay indhaha ka qaaday wiilkeeda oo habeen iyo maalin ay ku taamaysay inuu garabkeeda istaago waxaa qaaday dareen waalid oo aan muuqaal iyo cod midnaba aan lagu cabiri karin waxaan dhageysanay maamada iyo maaragta arrimaha ay ka hadlaysay waxa hadii ilaahay yiraahdo maalinta berita ah ka howlgali doonaa maamada iyo wiilkeeda oo sida ay sheegtay xabsiga ku jiro in aan cadaalad u raadino wasiirka cadaaladda Cabduqaadir Maxamed Nuur oo habeen ka hor hooyo Luul ugu tagay hoogeeda ayaa fuliyay ballanqaadkii ahaa in si sharci ah loo mari doono kiiskan oo la xiriira xukun ku yimid dambi uu ku dhacay wiilkeeda Xasan Cali Ibraahim sida aan horay uga ballan qaadnay maamul Luuley ayaa nala joogto iyo wiilkeedii Xasan Cali oo muddo xirnaa sababaha u xirnaana ay ahayd ku takrifalay xoolaha dadweynaha askari ayuu ahaa qorigii uu qaranka ugu adeegayay ayuu iibsaday xukunkiisina uu dhameystay deentii lagu lahaa oo qoriga dad muxsiniin iyo wasaaradda cadaaladda ayaa iska kaashaday inay bixiyaan qorigii loogu celiyo qaranka maanta ayay noo suuro gashay processkii oo habeenkii aan maamada ka soo ballan qaadnay uu soo gabagaboobay oo warqadii ugu dambeysay oo maxkamadda ciidamada qalabka sida soo baxday waxa ilaahay mahadiisa in maamada uu maanta saacadaas la joogo wiilkeedii uu la joogo hooyo Luul Cismaan Xasan ayaa farxad dabadeed waxa ay u mahad celisay dhammaan intii ka qayb qaadatay inay dib ula midowdo wiilkeeda ilaahay ku waraabi dawladda madasha kor Allah ku weer ilaahay kor Allah ku weer ilaahay siin amaansada masaakin ah kurbogoytan kar Allah siinsay an ka saabanglaan ani bagalab nagadi rafaadi ilaahay kar Allah siinsay Xasan Cali Ibraahim oo hore uga tirsanaa ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya laguna helay inuu iibsaday qorigii uu ugu adeegayay qaranka soona dhameystay xukunkii ku dhacay ayaa cabiray dareenkiisa la xiriira in hooyadii 4 sano kadib uu garabkeeda istaago ana muddo 4 sano oo xabsiga ku jiray oo tan liiga soo saaray wasiirka cadaaladda igu soo saaray oo hooyadeeda oo garab soo siiyay hooyadeeda loo ruux ka dhimatay ana kaliya u joogo wasiirka garabna siiyay dawladda Soomaaliya macnaha idii macnaha iyada wax qaadato iyada raadsanayso aniga waa soo haasatay waadana wasiirka iga dhiibay hay'adaha cadaaladda dalka ayaa xukuma qof waliba oo dambi ka gala dalka iyo dadka xukunkaas oo taabta dambilaha la xukumay iyo qoyska uu ka soo